السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دمان داودياشا qiimaha sharafta leh idil ahaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkii bara gobolada dalkaaga qaybtiisa shanaad oo maanta ku soo qaadan doono taariikhda gobolka Jubbada Hoose. Gobolka Jubbada Hoose waa mid ka mid ah 18 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, waana gobol ka mid ah gobolada ugu baaxadda weyn 18 gobol. Juqraafi ahaan wuxuu dhacaa cirifka koonfureed ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale gobolkani waa mid ka mid ah gobolada ugu qanisan geeyiga Soomaalida, wuxuuna qani ku yahay gobolkani kalluunka, beeraha, xoolaha nool iyo ganacsiga, taasoo ka dhigaysa gobol dhan walba ka diyaarsan eebana uu ku maneysta kheyraadka dabiiciga ah. Goobaha la yaab kale ee gobolkani ku yaal waxaa ka mid ah kow deegaanka Goobweyn oo ah halkay isaga daraan badweynta Hindiya iyo webiga Jubba. labo jasiiradda Kudha oo ah jasiiradda ugu weyn ee geeyiga Soomaalida, dhanka koonfureedna uga beegan magaalada Kismaayo. saddex tuulada dhulbaraha adduunka ee deegaanka Baarsangooni marto ee dhanka waqooyi ee magaalada Kismaayo. magaalo madaxda gobolkani waa Kismaayo, ahna caasimadda saddexaad ee dalkeena. dhanka degmooyinka gobolkani wuxuu ka kooban yahay 4 degmo oo kala ah Xagar, Jamaame, Afmadow iyo degmada Badhaadhe. waa gobolka labaad ee ugu xuduudda yar marka loo eego gobolada uu suhdinta la wadaago sida gobolka Gad iyo gobolka Jubbada Dhexe. miraha ugu caansan ee sida dabiiciga ah gobolkan uga baxo waxaa ka mid ah xamur, hohob iyo geedka cambaha oo ka baxa. gobolkani wuxuu kaalin lixaad leh ka qaatay gobonimo doonkii iyo la dagaalankii gumaystihii Talyaaniga.